السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan fariin aan lagu farxin ustaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Shiinaha iyo agagaarkiisa. Fariintaas oo aynu ka dilaacay xanuun la magac baxay coronavirus, xanuunkaas oo usbuucii la soo dhaafay ilaa iyo maanta laayay ummad lagu qiyaasi karo 20 qof, dhaqtaradan u jiifaan kumanaan imika 1000 qof meelahaas. xanuunkan uu ka bilaabmay magaalada Wuhan, hase yeeshee hadda ku faafay magaalooyinka waaweyn ee Beijing, Tianjin, Shenyang, Xi'an, dhinac kasta oo wadanka ka mid ah. Aduu waa ku faafay magaalooyin waaweyn iyo qaar yaryarba hadda waa ku faafay xanuunkaas oo ah mid dilaa. xanuunka astaamihiisa waxaa ka mid ah marka hore wuxuu ku qabanayaa sida hargabka, waxaad yeelanaysaa qandho, matag, kabacdina neefta kugu adkaansa. marka dambe waxaa laga yaabaa inay kaliya ku istaagaan, geeriduna ay saa dadka ugu timaado. ilaahay ha inaga haye oo xanuunkii gaalada leylahaaye, ilaahay ha inaga haye mar labaad iyo mar saddexaadba. marka wax dawaa oo ilaa haatan loo hayo xanuunkaasi ma jiro, laakiin ka hortagga loo hayaa waxa weeyaan in xanuunka aad mar walba nadaafadda ku dadaasho oo gacmaha ku maydho shampoo iyo saabuun, aad isticmaasho alcohol, aad gacmaha ku nadiifiso, inaad isticmaasho face mask afka lagu xidhanayo mar kastaba sida kuwa dhaqtarada ee protectionka wata, inaad ka fogaato meelaha ummaddu ku kulmaan ay magaranaysaa sida subwayadoo kale amaba meelaha kale ee adugu saxmadda ee ummaddu ay ku kulmaan inaad iskaga fogaato mar kastaba. inaad sidoo oo kale aad safarada badan iska ilaaliso, waayo dhan kastoo wadankii ka mid ah hadda xanuunku waa ku faafay, waxaana laga yaabaa inuu agagaarka wadanka hadda ku faafo. insha allahu tacaala digniintan hadday kusoo gaadho waxaan kaa codsanayaa inaad gaarsiiso dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhaqan yihiin, inta u dhow wadanka Shiinaha iyo inta ka fogba, waayo waa xanuun halis ah oo dilaa. haddana ay u dhinteen dad badan, lagana yaabo inay qaar kale u dhintaan. allah ha inaga hayo, waa inaga badbaadiyo.